Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin dhalinyaro inaad fiicantiin baan rajeynaya dhammaantiin. Muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay application-kan meesha inooga muuqda ee Wafi la yiraahdo. Marka application-kan faa'iido badan ayuu soo kordhiyey. Muddooyinka ugu dambeysay markaa wuxuu haystaa baraha bulshada aad uga soo muuqda. Marka wuxuu soo kordhiyey faa'iidooyin fara badan oo weliba gaar ahaan innaga haddii nahay xirta online-ka ama haddii nahay dadka xagga online-ka ku badan faa'iido badan noogu jirto. Markaas app-kan wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo Mastercard-kani ayaa wuxuu haddaba awood u leeyahay markaasi sida Premium Bank ama akoonnada kale ama meelahaasi caadiga laga diro si international-ka ah loogu diro lacagaha si lamid ah ayuu kugu diraya Mastercard-kani. Mastercard buu ku siinayaa free ah oo wax lacaga kaa qaadin haba yaraatee laakiin totally free ayuu ku siinayaa. Mastercard-kaasina lacagta inta ugu badan lagu shubtay ee ugu yar baa ah $5 ama $5. Laakiin muhiimadda ayaa ah wax ma ku iibsan karaa oo online ma ka iibsan karaa gaar ahaan inagu markaynu iibsanayno sida hosting iyo domain ama domain faqada dhalinyarta inta ugu badan waxay iibsan jireen domain-ka markaan ka hadlayno xaggeeni blogging-ka marka domain-kii aad odhan jirtay dadka ii iibiya hadda kadib adiga iska iibsan doona insha Allah. Marka app-kani any country waa ka shaqeynayaa waxaad gashanaysaa uun number-kaaga caadiga ah. Marka aniga hadda waxaan gelin doonaa number saad ah oo number saad ah baan hayaa. Kabacdi marka numberkaasi saadka ah geliyo waxaan tusi doonaa Mastercard-ka saa looga dhex furto isla application-kani. Marka hadda kadib wixii aad u baahan tahay online inaad ka iibsato si toos ayaad uga iibsanaysaa. Weliba wax khidmad ah oo aan arkay ma jirto waan ku tijaabiyey. Mar waan ku shubay marna waan ka soo shubay wax khidmada ma arag. Lacagta ugu yar aad ka soo celin kartaa iyaduna lacagta ugu yar ee aad ka soo celin kartaa waa $1 weyn intaan arkay wax ka yar kuma eegin laakiin $1 dib baan uga soo celiyaa transaction-ka waan tusi doonaa. Soo kaleeto waxaad ku diri kartaa waxaanad ku soo top up garayn kartaa ama markaad ku shubanaysaa ku soo shubi kartaa ilaa $5 ugu yaraan. Marka waxyaalaha $5 ka badan baad si toos ugu iibsan kartaa. Haddaba aynu galno sida loo samaysto application-kan Wafi. Waxaad ku isticmaali kartaa macnaha ama aad ku samaysan kartaa simikaadhada ay ka midka yihiin saadka, EVC-ga, Golista waxaas oo dhan waad ku furan kartaa waa free weeye intaan ogahay anigu. Marka ani saad baan isticmaalayaa kolka kaarkaaga adigana eeg inuu ogol yahay ama aad ku samaysan karayso Wafi. Marka hadda aniga saad baan isticmaali doonaa saadkana si fiican ayuu ugu shaqeynayaa. Haddaba application-kani marka horeysa waxaad kala soo degaysaa Play Store ayaad tegi doontaa kabacdina waad la soo degaysaa. Markaad soo download garayso Wafi baa ku qoran. Wafi-ga markaad soo dejiso ugu horreyn wuxuu kusoo saari doonaa shaashadda caadiga ee Wafi-ga laakiin wuxuu ku oran doonaa marka horeysa ku bilow number-kaaga. Marka ani hadda number-kayga ima soo saaray maadaama aan geliyey xogaa ka hor aan geliyey oo aan maalmahan isticmaalayay. Marka number-kayga hadda ima soo saarayo laakiin marka hore wuxuu ku saaray meesha aad gelin lahayd number-ka. Markaad number-ka geliso aad number-ka halkaasi soo geliso kabacdi wuxuu keeni doonaa shaashaddan. Markuu shaashaddan ku keeno number-ka marka hore verified baa lagu dirayaa ama 6 lambar baa lagu dirayaa 6 lambar baad dabeetana gelin doontaa meesha lagu baneeyo. Marka sidan kuu soo baxdo ugu horreyn meelahan hoose haddaan eegno meeshan chat baa ku qoran meeshanna waxaa ku qoran sim card-ka aad isticmaali doonto server-ka uu adeegsanayo kanani waa Telesom aan isticmaalaya markaasi halkaas adigana kuu soo geli doonaa. Haddii aan hadda ku dhufto kan ugu horreeya Telesom ku qoran tahay adeegyada Telesom bixiso ayaa meelaha ka soo wada baxaya. Adeegyadan waxay noqon doonaan markaasi waxa weeye waa EVC ii sheeg recharge-kii oo kale ama xaggii kaga shuban lahayd telefoonka ayaad halkan kaga shuban karaysaa. Soo kaleeto daatada iyo waxaana waad ku shuban karaysaa sidii caadigeeda weeyaan meeshaasi. Okay meeshaas haddaan ka nimaadno meeshan xigta ee scanning-ka ah sana kuu soo bixi doontaa markaad u sareyso ku dhufo weeligiis inta ku dhufo. Marka meeshan scan-ka ah waxaad mari doontaa marka aad doonayso lacag ku dirto sida tusaale aad ku dirto meherad baad doonayso lacag u dirto ku iibsada ii yeeri baa inta badan la yiraahdaa. Marka ku iibsina ku yeeriya maahaba xaggeeda hoose inta badan waxaa ku qoran QR code. Markaas ayna lacagta xataa kaaga khaldamin waxa suurtagal ah lacag dambaba ayna ka khaldamaynin. QR code-ka ayaad sawirkan saa ugu qaban doontaa ana hadda waa madow sawirku saasaad ugu qaban doontaa kabacdi waxa ku soo bixiya lambarkii kabacdina saasaad toos ah ayaa lacagta ku diraysaa. Halkii aad lambarka ka gelgelin lahayd aad buu u fududeeyay runtii wax walba waa u fududeeyay. Haddaan qaybta ka soo noqono qaybta muhiimka ah ama kaarka laga furanayo ayaa waxay tahay waa qaybtani. Qaybta muhiimka ah ama kaarka laga furanayo waa qaybtaasi hoose ay ku qoran tahay money. Marka qaybta money baad ku soo dhufan doontaa. Markaad ku soo dhufato money meesha wuxuu ku weydiin doonaa PIN. PIN-kan uu ku weydiinaya PIN kala maaha PIN-ka aad ku gasho ama saadkaaga ama sahalkaaga waxaas aad ku gasho ayaad ka gelinaysaa. Marka hadda PIN-kayga aan gelinayaa kabacdina horaan ugu sii soconaya markaas. Okay hadda waxaan geliyay PIN-kii markaan PIN-kii geliyay wuxuu oranaya hadda waxa kuu sii diraya oo lambarkan aan ku diraynaa code kale. Code-kii waa kana code-kan uu ii diray. Marka code-kan ii diray hadda code-kan ayaan gelinayaa meesha marka adigana code-ka saas kuugu soo diray. Mar walba waxa muhiim ah inaad haysato sim card.
okay koodkan ayaa markaasi gelinayaa. Okay, markaad koodka si sax ah u geliso shaashadana kusoo bixi doontaa. Inkastoo kuu soo saaray haddii una Mastercard kuu samaysnayn, pop-up buu kusoo saaray uu qornay activate Mastercard ama create Mastercard. Mastercardkaaga diyaarso ama samayso ayuu ku oran doonaa. Laakiin san ayaa inta badan dadka u soo baxda. Meeshan ayuu ka muuqan doonaa Mastercardku. Haddii una ka muuqana kan ayaad bidixda saa ugu jiidi doontaa ama dhinaca bidixda ayaad u jiidi doontaa. Marka meesha ku xigta ayuu ku jiraa Mastercard. Marka meeshan xagga sare waxaad ka arkaysaa balance-iga kugu jira saadkaaga ama akoonkaaga. meelahan waxaad dhammaantood isticmaali kartaa meelaha lacag laga dirayo, meelaha lacag ka helayso, meelaha cards iyo waxaas ka furanayso dhammaantood waa meeshana. Hadda waxaad ku soo dhufanaysaa markaad doonayso Mastercard-kaaga in aad furato halkan ayaad ku soo dhufanaysaa Mastercard ku qoranta. Ani hadda waa uu furan yahay activate waa yahay. Laakiin halkaas ku soo dhufanaysaa. Marka ku soo dhufato waxa ku soo bixi doona wuxuu qoran doonaa activate Mastercard kaliya. Marka activate baad ku dhufan doontaa oo ay sameeyaa. Marka wuxuu ku sameyn doonaa oo ku diyaarin doonaa Mastercard sax ah oo international. halkan waxaad ku arkaysaa in Mastercard-kayga uu diyaarsan yahay. Halkaa waxaa ku jira lambarka dheer ee Mastercard-ka ee la isticmaalo marka si online wax u iibsanayso. Meeshana waa expire date-kii oo macnaha ilaa intuu shaqeynaya ka dhigan tahay 29 baan igu qoran marka ilaa 2029 ku shaqeynaya hadda. halkana waa saddex lambar ee sirta marka mar walba sanaha kugu qarsoonaadaan. Imika hadaan u baahan inaan ka qaado falaa halkaasaan ku dhufanayaa. Wuxuu weydiin doonaa passwordka mobilka ama wuxuu weydiin doonaa fingerprinting-ka haduu kugu xiran fingerku weydiin doonaa. Okay, hadda halkan meesha waxa ku qoran activated waa ay shaqeynaya Mastercard-kani. Numberkiisana intaas u dambaysa. Meeshan mar walba inaad qarsataa wanaagsan marka dadka la joogtid. oo ay xogtaada oo dhan halkan ayay ku jirtaa. Marka si fudud ayaa lagu heli karaa. Marka iska ilaali inaad meelahan aad la wadaagto dadka. waxaan muhiim ah inaad markasta telefoonkaaga adeegto aad securities aad ilaashato. Okay, meeshan waxa ku qornaan doonta xereega oo dollar ayaa halka ku qornaan doonta. xereega oo dollar ayaa barta ku soo qoran doonta. Meeshan haddaba history waa kana meeshan history-ga ayaan tusi doonaa waxba. meeshan waxa ku qoran waad arkaysaa. meeshan waxa ku qoran inaan name chip si toos ah uga iibsaday. name chip si toos ah uga iibsaday baad arkaysaa. domain aan uga iibsaday. markan $6 iyo waxba discount bay sameynayeen laakiin way soo diideen oo marka wuxuu account already hore isticmaali jirtay. markaad cusubta waxa laga yaabaa in $6 ka siiyaan. sometimes-na ay ka siiyaan $10. marka waxaad arkaysaa meeshan waan tijaabinayay meeshan oo dhan waxaan waa tijaabooyinkan ka qaadayay aan ku eegay inuu shaqeynayo. waxaasoo dhan baan ku eegay mar baan soo diray mar baan sii diray mar baan ka soo saaray mar baan dib ugu celiyay. marka hadda waxaad isweydiinaysaa ugu soo shubeysaa Mastercard lacagtaada. horta lacagtaadu waa inay ku jirto iyadoo dollar saadkaaga ama EPC-ga ama wixii la midka inuu ku jirta. meeshan ay ku qoran tahay top up meeshaas ay ku qoran tahay top up ayaad ku dhufanaysaa. marka top up ku dhufato wuxuu ku oran doonaa lambarkaagu waa noocaas xeregaaguna waa intaasi. markaasi kaasaad ka soo qaadaysaa ku oranayaa. kabacdina meeshan sirooyada ah ayaad iman doontaa. kadibna halkan ayaad gelin doontaa $10 iyo wixii la mid ah. marka wax fee ah ma arag aniga wax fee oo qaadayaan ma arag. totally waa free. Okay, markaad adoo meeshaas ka timaado lacagtu halkan ay kugu soo dhici doontaa. taas macnaheedu ka turjumayay in Mastercard-kaaga lacagta ay ku jirto. haddaba Mastercard lacagta ay ku jirta online marka adeegsanaysid waad garanaysaa xagga online-ka isagoo iska fudud yahay si automatic ay uga baxayaan markaad koodka aad siiso validating time-ka aad siiso Mastercard-ka aad magaca ku qoran iyo aad wada siiso xogtaasi saasay kula baxayaan lacagta cidda aad online ugu diraysa. waxaan isweydiin lahaa hadaba haddii lacagta xagan aan ku shubo aan doonay qaybta inaan la noqdo ama dib aan la noqdo. meeshaan ku sheegayay top up-kan waa meesha ugu yartahay $5 aad ka soo qaadi karto sim card-kaaga iyo Mastercard-kaaga keeni karto. meeshan ay ku qoran tahay withdraw waa kala soo baxaysaa oo Mastercard-kaad kala soo baxaysaa kabacdina sim card-kaaga si wax ka yar hal second ayuu kugu celinayaa. hal second ka yar ayuu kugu celinayaa markaaba. Okay, haddaba application-ka runtii aad buu waxyaalo badan u fududeeyay xagga online-ka aad iyo aad buu u fududeeyay. waxaan rajeynayaa muuqaalkaasi aad ka wada faa'iideysan doontaan insha Allah oo aad si fudud wax kasta oo aad uga baahantahay online aad uga iibsan doontaan. wixii su'aalaha commentiga ayaad ku soo qori doontaan insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.